gabadha keliya ee ku jirtay gobolka awdal ka soo jeeda shirkadaha inta la eeg berbere ka shaqeynaya in bartilmaameed loo adeegsado waanu ka xunnahay ogolaanamayno yeelnamayno aanu go'aansanay haddaan nahay golihii deegaanka degmada Boorama ilaanu maayirka golaha deegaanka degmada Berbera aanu runtii xafiiskiisa ugu tagno oo aan arrinkan kala hadalno miiska dushiisa ku xalino maayir cidii wuxuu muuqday nin dawey leeyahay dambi uu bad leeyahay isagay u daranto inuu daarmo ogolo ku leeyahay shirkadan la yiraahdo Agram waxaanu soo ogaanay xogtii xaqiiqadii magaaladii saaxil ka jirtay inuu maayirku hormuud ka yahay shirkadaasi uu doonayo shirkadani Rayan Transportation inuu khadka kaga saaro sababo ka baxsan sharciyada dhaqanka akhlaaqiyadka qof gobol kale u dhashay gobol waliba uu joogaa gaadiid la gubaano meel waliba uu yaala ugu jeeda ma shaqada gacanta lagu qaadanaya meel amnigeegu sugan yahay oo xasiloon oo dekadii qaranka looga adeegaya in gaadiid kamid ah shirkadaasi si bareer halka loogu gubay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorama oo magaalada Hargeysa CBTV kula hadlay waxay sheegeen inay safar ku tagaan magaalada Berbera kaasi oo ay doonayaan inay xal kaga gaaraan isla markaana ay maayirka magaalada Berbera kala kulmaan arinta cabashada inanta ganacsatada ee sheegtay in magaalada Berbera uu maayirka magaaladaasi dhibaato ugu geystay isla markaana uu diidan yahay inay ka ganacsato xildhibaan Axmed Khayr oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Boorama isla markaana safarka ku tagay magaalada Berbera lana kulmay maayirka magaaladaasi Berbera Cabdishakuur Cidin ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay kala kulmeen maayirkaasi waad maasantahay walaal adigii telefishinka CBN runtii saad sheegayso waxaan magaalada Boorama ka soo baxnay 16 bisha waxaan tagnay magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil annagoo u tagnay cabashada ka soo yeedhay gabadha muwaadinada ee Caasha runtii mulkiilaha ka company-gaasi Rayan Transportation and Logistics markii aanu cabashadeeda runtii aanu aragnay waxaanu go'aansanay inaanu hab maamul aanu xalino waxaanu go'aansanay haddaan nahay golihii deegaanka degmada Boorama ilaanu maayirka golaha deegaanka degmada Berbera aanu runtii xafiiskiisa ugu tagno oo aan arrinkan kala hadalno miiska dushiisa ku xalino oo hab maamul aanu marno arintaas aanu ku tagnay Berbera runtii jawiga aanu kala kulanay xafiiska maayirka iyo shakhsiyadiisa runtii muu ahayn mid u diyaarsan xalinta iyo xal helida arintan Caasha waxa runtii u muuqday runtii inuu groupka ay Caasha tartama leeyahay ama qaybaad ka noqonaysan leeyahay shirkadeeda uu hormuud u yahay marka maayir cidii wuxuu muuqday nin dawey leeyahay dambi uu bad leeyahay isagay u daranto inuu daarmo ogolo ku leeyahay sababtuna waxay tahay qofku halku interest-ka ugu jiro isagu hogaaminayay shirkadan la yiraahdo Agram waxaanu soo ogaanay xogtii xaqiiqadii magaaladii saaxil ka jirtay inuu maayirku hormuud ka yahay shirkadaasi uu doonayo shirkadani Rayan Transportation inuu khadka kaga saaro sababo ka baxsan sharciyada dhaqanka akhlaaqiyadka iyo baratikolka dawladnimo waxaanu isticmaalayaa xilkii degmada oo isagu maayirka ka yahay waxaanu u isticmaalayaa danihiisa shaqsiga halka uu u isticmaali lahaa danaha guud ee qaranka iyo dawladnimadii adeega ummadda uu ku gaarsiin lahaa ayuu isagu uga faa'iideysanayaa danihiisa gaarka waxaan runtii aad iyo aad aan halkan uga cadeynaynaa tacaddi bareera oo runtii aan geed lagu gabanaynin oo xaq darra oo dulmiya buu ninka maayirkii magaalada Berbera ka wada dadweynaha reer Saaxil xariirta ee ay gabadhu ka mahad sheegatayna ammaan baan hawada u marinayaa waxaan leeyahay iska qabta sababtuna waxay tahay walaal waxaanu ogeyn maalin dhaweeyay wasiirka beeraha oo runtii sheegay dhaqaale xumada dalka ka soo gaadhay inay dekada Berbera guud ahaan ganacsiga ka wareegay waxaana kowka in laga wareego oo sababa maayir cidin sababtuna waxay tahay habka shirkadaha ama ganacsatada kambaniyada dadka ee dalkan ka shaqeeya ay ugu horeeyaan gaadiidka alaabaha dekada ka soo qaada iskaashataa maayir cidin iska leeyahay baa iyo hormuud ka yahay dad isagoo gacanta ku soo sameystay iyo magaaladii saaxil buu wax ka dhigay dukaan iyo meherada uu leeyahay sababtuna waxay tahay talaabadii dhaqaaqdaba ana ka muuqata marka runtii maayirka waxaan leenahay mas'uuliyadda aad ummaddu hayso ee aad u dhaaratay ee aad kitaabka gacanta ugu hayso siday ahayd u fudo haddii aad u gudan weydo oo aad doonayso ku tagrifo la awoodeedna qof gobol kale u dhashay gobol waliba uu joogaa gaadiid la gubaano meel waliba way yaalaan arintaasi waxay keenaysaa runtii fool xumo iyo cawaaqib xumo aan la mahadin xilibaan idinku markii aad maayirka la kulanteen ee arinta aad kala hadasheen wuxuu idinku jawaabay runtii uma diyaarsanayn arintaasi nin u diyaarsan maaha had iyo goor aalana maayirku wuxuu isagu jecel yahay ee maskaxdiisa ku soo dhaca ayuu ku dhaqmaa nin sharciga ku dhaqmo ma ahaba waxaan leedahay gaadiid la gubaa gaadiid meel kale oo gaadiid la gubaa uu joogaa waxaad ugu jeedaa ma shaqada gacanta lagu qaadanaya shirkadda la yiraahdo Rayan Transportation meel amnigeegu sugan yahay oo xasiloon oo dekadii qaranka looga adeegaya in gaadiid kamid ah shirkadaasi si bareer halka loogu gubay
dee runtii waxay keenaysaa cawaaqib xumo mana aha meeshu bannaan iyo beera ma ahe waa dekedii ammaankeyga la ilaalinayay la sugayey haddii arrinkaasi aanu qayb ka ahayn waxa la doonayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh wixii waxaa ka dambeeyey cadaaladda loo horkeenay shirkaddaas cadaaladasho maayirku uu hadlay cabashada inanta uu ka hadlay waxau sheegay in muddo 7 sanadooda ay ka shaqaysanaysay dekedda berbera keligeedna ay ka shaqaynaysay shirkaddeedu uu ka dhamaadayna kontraagii ay kula shaqaynaysay sidaa beddelkeeda la soo xayeysiiyey haddii 7 sanadood ay ka shaqaysanaysay berbera inanta haddii la yidhi kontraaga uu kaa dhamaaday lagula tartamo shirkadahan soo galo qayb ka noqo maxaa ku jaban annagu maya waxa aan dareennay oon soo ogaanay oon xoogaal u noqonnay rag waaweyn oo mas-uuliyiina baan magaaladii berbera u tegnay inuu maayirku ku tumasho sharciya awood u isticmaalayo sharciga ku shaqaynaynin xeerarka dalka iyo shuruucda dalkana iska dhigatirayo wuxuu doonayaa yeelayo gabadha keliya ee ku jirtay wax gobolka awdal ka soo jeeda shirkadaha intaa la eeg berbera ka shaqaynaya in bartilmaameed loo adeegsado waanu ka xunnahay ogolaanamayno yeelnamayno meel kastoo inala galaysana waa la gelaynaa waxa aan u ballan qaadanayna xaqeega heli doonto isaguna runtii aanu halkaasi taasi kusii u yargelaynin tallaabo kastoo sharcigu noo golayaan qaadanaya xuquuqda muwaadinadda aan ku difaacayno waxa ay doonaysaa waxay tahay inay tartan feera oo cadaaladaysan ay hesho kuna shaqaysato haddii laga guulaystana halkaa marto haddii guulaystana ummadda u adeegto madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi fariinta aan u diraya waxay tahay mudane madaxweyne dadka kaa hooseeya ee magacaaga isticmaalaya xataa wuxuu ku leeyahay mar walba madaxweynaha ilmaadeernaani ayaa wax iga qaadi kara cid walba ku leeyahay uu ku soo yidhi xaqiiqo caddaynteedii laaya dee sharaftaadii bahdil bay ku tahay dadka noocaas wax iska qabo